kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka saacada ee warbaahinta cusub qodobada warka aad ku daawan doontaan waxa kamid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si diiran loogu soo dhaweeyay magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga. madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa waxa garoonka diyaaradaha ku soo dhaweeyay wasiirka waxbarashada dalkaasi iyo safiirka Soomaaliya u fadhiya Mudane Jaamac Cabdullaahi Ciidiid iyo diblomaasiyiin kale. safarka madaxweynaha ayaa ku qotoma mid ku aadan kadib markii uu booqasho rasmi ah ka helay dhigiisa madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan. waa safarkii labaad ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu dalka dibadiisa ugu dhoofo tan iyo markii dib loo doortay. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa qadka telefoonka uga qayb galay kulan taageero ah oo loogu sameeyay magaalada Toronto ee dalka Canada. ra'iisul wasaaraha ayaa kulanka kalmado ka jeediyay uga hadlay qodobo badan waxaana kamid ahaa amniga iyo siyaasadda gudaha dalkeena. ra'iisul wasaaraha ayaa kalmadiisii diiradda ku saaray sidii kooxda argagixisada Al-Shabaab looga ciribtiri lahaa guud ahaan dalka. ugu dambeyntiina booliiska Denmark ayaa war ka soo saaray toogasho ka dhacday dukaaman ku yaalo caasimadda Denmark ee Copenhagen. booliiska ayaa sheegay in ay dhowr qof toogashadaasi ay ku dhinteen sidoo kalena qaar kale ay ku dhaawacmeen isla markaana la filayo in warbixin rasmi ah oo booliisku ka soo saaro. guud ahaan daawadayaal waa nageynta warkii saacadda warbaahinta cusub ee aad ka daawanayseen. inta warkan warkiis xiga aan kulmi doono sidaas iyo amaana Allah.